waxaan doonayaa inaan halkan mudane madaxweyne kelmad yar oo kooban aan ka soo jeediyo insha Allah ta'ala kadibna aan kugu soo dhaweeyo maanta waa maalin weyn waa maalin runtii sharaf inoo ah anagoo doonayna inaan maxay ahayd dadka aynu tusno waxqabadkeena iyo sida ay u socoto dawladdu gaar ahaan bahda waxbarashada oo anigu imika mataliyay wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo naftaydaba madaxweyne halkan waxaanu maxay ahayd aan la qabaa oo aanu ku siinana warbixintii ay madaxdii bahda waxbarashada ka socotay iga horeeyay ay yiraahdeen haddii ay gudoomiyaha tacliinta sare tahay haddii ay tahay gudoomiyaha maxadka ama agaasimaha maxadka waxa inta ay raaca madaxweyne oo aanu gacanta ku haynaa oo bulshadana aanu u sheeganaa ka wasaaradahan marka laga yimaado inaanu soo saarno arday tayo leh oo iskuuladii aanu imika gacanta ku hayno sidii ay tayo u yeelan lahaayeen waxa imika aanu gacanta ku haynaa anaga iyo maxadkuba inaanu macallimiinta kooto ugu xidhno inay maxay ahayd maxadka qayb ka ahaadaan oo macallimiintii dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhaxba in aqoontoodii la kubciyo waxayna noqon doontaa mudane madaxweyne waxqabadada ugu waaweyn ee waxbarashada tiirka u noqon doona haddii Ilaahay raahdo mudane madaxweyne waxaan halkan aan doonayaa inaanu aniga oo bahdii waxbarashada aan hogaaminayno wasiirkiina aan matalano inaanu diyaar u nahay dhammaan shaqaalaha dawladda ee maanta ka baxaya ama qalin bedelashada sameynaya anagoo matalana inaanu qaranka ugu shaqayn doono haddii Ilaahay raahdo cilmiga aanu baranay anaguna ka wasaaradahan kormeerkeedii iyo siyaasadeedii insha Allah ta'ala iyo kobcinteedii aanu maxay ahayd wadno sii wadi doono anagoo maxay ahayd hogaaminteeda aanu maxay ahayd harsanano madaxweyne waxaan doonayaa in ardayda halkan uga hambaliyeeyo oo la yiraahdo hambaliyo ma tihidiin arday ka baxay sida jaamacadaha gaarka loo leeyahay waxaad ka baxdeen jaamacadihii dawladda jaamacaddii ugu muhiimsanayd loogu jeclaa tayada ugu fiican lahayd waxa la doonayaa ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qaaday bulshada inay fulinteedii oo adeeg kasta oo aad qabanaysaan dawlad ahaan xafiisyada aynu joogno oo anaguna idinku hogaaminayno bahdii waxbarashada haddaanay inay idinka muuqato haddii Ilaahay raahdo oo anaguna aan idinku faano insha Allah ta'ala waxa doonayaa halkan bulshada inaan u sheego dadka la soo saaray ee tiradooda la idin sheegay waa dad ku hubaysan aqoon iyo karti insha Allah ta'ala xafiisyada dawladana waxaad maxay ahayd ka heli doontaan adeeg hufan qurux badan oo si daacadnimo ah wadanimo ku jirto insha Allah ta'ala la idinku shaqayn doono waxaan ku soo afmeerayaa hambaliyo ayaan ardayda leedahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.